saaka toddobadii subaxnimo waxaa si rasmiya magaalada Gabiley uga bilaabantay qaadashada kaadhadhka doorashooyinka Somaliland ee loogu talagalay komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa si rasmi ah u shaaciyay in guud ahaanba gobolka Gabiley iyo degmooyinkiisa hoos yimaadaba ay si rasmi ah uga bilaabeen xubno ka socda golaha wasiirada Somaliland oo horkacaya wasiirka beeraha warshadaha iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada ayaa saaka shir jaraa'id ay ku qabteen iyagoo weheliyaan maamulka gobolka Gabiley oo horkacaya duqa degmada Gabiley Aamin Cumar Cabdi iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmadaasi ay si rasmi ah u sheegeen guud ahaanba gobolka Gabiley oo si rasmi ah u bilaabeen sidii ay komishanka doorashooyinka Somaliland ay u bilaabi lahaayeen kaadhadh qaadashada iyo waliba goobaha ay ka qaadan doonaan dadka ku dhaqan guud ahaanba gobolkani Gabiley waxaana mas'uuliyiintii saaka subaxnimadii hore aanu kula kulanay goobaha laga qaadanayo kamid ahaa xubno kamid ah golaha wasiirada oo kaadhadhkooda qaadanayay iyo sidoo kale maamulka gobolka Gabiley oo horkacayaan oo iyaguna sidoo kale kaadhadhkooda qaadanayay waxaana mas'uuliyiintii kala duwanaa ee halkaasi hadalada kooban ka jeediyay hadaladoodii kamid ahaa waa 8 bishii 7 waxaanu maanta halkan si rasmi ah uga shaacinanaa inay kaadh qaadashadii diiwaangelinta doorashadu ay ka bilaabantay gobolka Gabiley saaka saacadu markay ahayd 7 subaxnimo oo ay guud ahaan 73 goobood ee gobolka si habsami uga bilaabantay kulli waa maalintii horeysay waxoogaa isdhaadhaafa iyo jahawareer ka jira xagga goobihii ay dadku marka hore iska diiwaangeliyeen goobaha kaadhashu yaalaan way jiraan sababtoo ah goobo rasmi ah oo mar walba sanaadiiqda la dhigaa ma jiraan sidaa daraadeed waxa weeye waa bilow laakiin waxaanu shaacinaynaa inay si rasmi ah u bilaabantay hawshuna si fiican u socoto guud ahaan gobolku amni yahay waxaanu guud ahaan dadweynaha gobolka Gabiley ee jooga magaalooyinka tuulooyinka dhammaantood aanu ugu baaqanaa inay isdiiwaangeliyaan oo kaadhadhka qaataan oo 7,787 cod ee aynu iska diiwaangelinay inaynu ku codayno aynu qaadanno ee dadka kooban ee ka shaqaynaya inay tashwiish geliyaan runtii waanu uga diganaa dadkan waxaan leenahay ka feejignaada waxaa ka bilaabmay gobolkan Gabiley qaadashadii kaadhka codbixinta guud ahaan 6 degmo ee uu gobolku ka kooban yahay iyo tuulooyinka hoos yimaada 73 goobood oo laga qaadanayo kaadhka codbixinta doorashada maanta way ka bilaabatay hawshaasi inkasta oo ay jiraan xaalado duruufo meelaha qaarkood oo ay abaari ka jirto oo dadkii ka hayaamay ilaahaydankii waxaan isku dayi doonaa bal sidii ugu suurtagalshan dadkaasi sidii loo gaadhsiin lahaa kaadhkaasi kuwa ka guuray meeshoodii ee meelo kala degay aad iyo aad baan u baraarujinaynaa in kaadhkaasi la qaato waxaan u nimid halkan sidii ay u suurtageli lahayd ama yoolkii iyo hadafkii laga lahaa kaadh qaadashada si u hirgeli lahayd waxa kale oo ka codsanaynaa muxuu ahaa dadweynaha reer Gabiley waa mustaqbalkoodii ma aha meel loo soo shaqo tagay ma aha meel lagu qaadanayo adduun iyo lacag waxa weeyaan mustaqbalkeeni waa halkii ay ka soo bixi lahayd ixtiraaf degdeg ah oo gobolkani uu helo waa halkii lagu qiimeyn lahaa tirada aynu muxuu ahaa leenahay waa halkan la inagu tuhmayay ee looga muxuu barbar dhigay caasamadihii waaweynaa ee markii hore sii jiray ee gobolada sidaa daraadeed waa in inagoo isku doonka oo lagu dadaalo oo shakhsiyan la iska xilsaaro oo aan reer Gabiley waxa weeye marka loo tartamayo dalka difaaciisa waa maalinta Gabiley marka loo tartamayo wax soo saarka waa maalinta Gabiley marka dimuqraadiyadda loo tartamayo waa maalinta Gabiley marka maanta waa maalintii Gabiley reer Gabiley sidii lagu yaqaanay waa inay halka uga wadaan tiradii isdiiwaangelisayna waa inay insha Allah si leeyahay wixii dhintay mooyaan inay intii kala kaadna ka lumin Gabiley kin waxaan rajaynaynaa in deewa maalintii koobaad wixii ka dambeeyay maanta ay si fiican ay dadku la qabsadaan oo matalan si wanaagsan oo jawi degan ay ku bilaabantay anu kaadhkaygii baan ku kalahay saaka wasiirka beeruhuna Gabiley ku soo kalahay
أنا كاركيجي بكون كله هو سوقاتي كاركيجي ما كان أنا قبلي ما كان كاركا وصعنا وننا كاركينا نقادنا مشرحين الناس وصاروا تذكر قبلنا أي استوى كاركا قاطع waa Nimcaan Deeg Ibraahin iyo ayaan la xaaji TV qaranka Gabiley.